dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisa iyadoon qalbiga galan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofkii isagoo quraanka yaqaana oo salaadina aan tukan karin ma dhacdo kuwa maalin qaylayo iska barjeenaya waa kan jamaacadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u galay fiican bay noo soo dhaweeyeen BBC raadiyogan way baqtiyeen oo way dhageysteen markaan u yar dhamaynay wacdigii aan idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeena mariyo neer raac mid baa gacanta taagoo yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wa kafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nabiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasab kaga dhigay ma tihin nabigii baa sidaa lagu yidhi waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnay assalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaanna soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni baray ninka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهي نستخرانا وآيات دليلين يأك معلومات هي لكن يقينتي إيمانك ضعيفة مرقاسا كنا لي لا بأس نراح سلانا والراح في من راعي نراح جماعة دينتي كلا تصوص صلاة نراح ilaahay fadliga ninka sidii uu nagu soo raacay jamaacadii buu la dhageystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamradii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo oo buu telefoon qaatay oo wuxuu yiri ayaa meeshan keenay ii sheegay waan xidhibe booliis baan ugu yeedhiyay wadankan hadii booliis lagu yeedho waa khalaas waa lagu tagay markaasaan idhi cidba ku meey naga raalli ah iska socow bas iska socow markii dambe ragii noo sheegeen waxay nagu yiraahdeen ninka wadanka markuu soo galay caalim buu ahaa waliba masaajid wadanka ku yaalo imaamka ahaa bay nagu yiraahdeen maantana dariiqu khamriga ku cabaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummadu maanta iimaanka hoos u yaala iimaankeena kor soo qaadan u baahanahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen